السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وولاشين أركسن VIP جنال كذا maanta waxaan ka hadlaynaa maskaxda caruurta fahan intee la eg ayay fahansan yihiin hadba da'da ay jiraan. ileen caruurtu way kala aqli badan yihiin waxayna ku xiran tahay sida aad ula dhaqanto. number 2 waxaan maanta ka hadli doonaa cognitive developmental fahanka iyo koriimishaha caruurta. maxaa la yiraahdaa John Piaget psychologistahan u dhashay Swiss ayaa 1936 wuxuu soo saaray baaritaan ku saabsan caruurta oo dad badan ay caruurtoodii xagga aqliga ay ka kori waayeen, dad badan caruurtoodii xagga iskuulka dhibaato badan ka qabsatay, dad badan ay caruurtoodii fahankoodii aad u liito. markaasuu baaritaankan soo sameeyay. markuu sameeyay ayuu wuxuu keenay theory-gan uu u bixiyay theory cognitive developmental. marka wuxuu u kala bixiyay 4 qaybood. maanta annagana 4taas qaybood ayaan ka hadli doonaa. qaybta koowaad waxa waaye waa caruurta markay dhashaan ilaa 2 sano ay ka gaarayaan. taa intaanan u gudbin waxaan rabaa inaan wax yar ka hadlo. caruurta way caruurta dibadaha ku dhalatay iyo caruurta Soomaaliya ku dhalatay. markaan dhahayo Soomaaliya ma ahan Afrika oo dhan, laakiin especially wadankeena hooyo markay caruurta ku dhashaan, caruurta waxay fursado u helaan inay ayeeyooyinkooda arkaan, awoowayaashoodii, hadallo badan la baro, caradii ay arkaan, dhagaxyo inay soo gurtaan, ari duur oo banaanka iska maraaya inay arkaan, digaagii, bisado, wax walba oo ama xayawaan ama carada ku saabsan oo dhan way arkaan oo maskaxdooda taasna way koridaa wayna dhalidaa. xilliyada roobka inay roobka ku ciyaaraan, ku bajaqsadaan meelaha, inay dhoobo soo aruuriyaan, inay biyaha meelaha galaan ay lugahooda soo marmarsi. waxyaabahaas oo dhan caruurta maskaxdooda way dhistaa wayna dejidaan. laakiin cunuga dibadaha ku dhashay justice subaxdiis markuu soo kaco fadhigaa la keenaa. fadhigaasaa la rabaa in laga sii ilaaliyo meelaha qaar. hooyooyinka qaar meelahay wax kasoo laalaadshaan fiyoorayaal, nal inay halkaan dhigato, halkaan TV inay dhigato, halkaan fadhi weyn oo alaabihii ugu dambeeyay inay soo dhigto. haddana intii rabtaa inay ka ilaaliso tiraado fariisa halkaa ha kicin, balaayo allah kugu rida, maxaa ku kiciye, fiirso TV-gaas. hadhow markuu cunugii iskuul gaaran waxay leedahay cunugaygu waa lagu taagan yahay, macalimadan baa iska daba dhigato, cunugaygu waa saan, ilmahaygu waa kan dhadhadhada. laakiin markii hore ayaad xilliguu wax baran lahaay ama uu khibrad badan u kordhi lahayd ama uu sheerin ama inuu fariisto uu baran lahaay adigaa u diiday. cunugii oo bahaahina baa iskuul u dirsatay, especially qaarkood ilmaha gacantay wax ku siiyaanba, afka u geliyaanba, ayaga afka u gelinayso, ugu gurayso. marka cunugii afka say wax ugu gurayday rabtaa inay iskuul u dirto. cunug afka wax la ugu guraayay iskuul haddaad u dirto uma malaynayo inuu inta qaato uu wax soo guran kara oo afka la aadi karo. ma kula tahay? malayn maayo cunugaas lamana aadi karo. waana mid aad adiga ku samaysay, ma ahan mid qof kaaga sameeyo. taa markii laga soo gudbo waxaan ka hadlaynaa 4 la dhahaa marxaladood oo cunuga maraayo inta uu yar yahay ilaa uu ka gaarayo 18 iyo maalintuu dhashay. cunuga 2 sano jiro, cunuga maalintuu dhashay ilaa 2 sano uu ka gaarayo wuxuu ku jiraa marxalad la yiraahdo sensory motor stage. muruqihiisa inay dhaqdhaqaaqaan, inuu wax dhadhamiyo, inuu wax uriyo, inuu wax maqlo, inuu wax taabto. maskaxdii qaybtii dhadhanka iyo dhaqdhaqaaq iyo urti qaybtaas bisa shaqayso. waana qaybta xagga annaga Soomaali markii la yiraahdo dhibka naga haysto. 2 sano oo ugu horeydo ilmahaasi laban u korinaa. edeb inaan meel fariisin, annaga edebta waxaan u naqaanaa cunug bartaas ha ka dhaqaaqin haddii la dhaho sida sanabka aanan ka dhaqaaqaynin aan rabnaa. qof bili aadan oo samayn karana ma jirto. ilmaha markuu yar yahay 2 sano uu ka yar yahay
sooma aadan aragnin wixii garaacmaayo inuu jecel yahay qaado iyo digsi markuu isku helo qaaw 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 dhawaaqaas waa qayb kamida maskaxda ay u baahan tahay inay barato in digsigani haddii qaado lagu garaaco in dhawaaq ka imaanan karo taasu asaga marka wuxuu ku jira waa cajaladu recording wadaa daf digsiga way ka qaade markaas uu wax garaacayo hala dagaalin hana ku qaylinin ileen qaybtii dhadhanka waxbaad u dhadhansiin kartaa liin afka u mari wax kale u dhiib wuu joojina laakiin wixii hadad ka dafto wuxuu isleeyahay stiil waxbaa kuu dhiman weli waxbaa kuu dhinaa berri ma joojinaya qabqabtaas ilmahaasoo kaleeto meesha aan ilmaha atoo yar uga soo gadaysaan ha usoo gadin waxaad u baahan tahay inaad usoo gado waxyaabo badan uu ku cayaaro haddaad qol keligii u sharaxi karto inaad u sharaxdo haddii aad banaanka u saari karto barnaamijyo yar oo dadkani westernka sameeyaan oo dhoobo la kuusa iyo waxyaabo la sawiro rinji gacmaha lagu sawiro iyo waxyaabo badanaa jiraan oo maxaa la yiraahdaa la aado oo ilmaha loo kaxaysto in badan Soomaalida ma sameeynata laakiin ilmahayna guriga iskaga haysanaa sababta oo ah laba waalido iscaawinaysa badana way nagu yar yihiin maxaa la dhahaa aabaha iyo hooyada badana haduu aabaha shaqeeyo just noloshiisa shaqadu ku soo kooba iyo xilliyo nasanayo hooyadana nolosheeda waxay ku soo koobaysaa inay cunto u siiso nadaafadoodana ay ilaaliso laakiin cunuga maskaxdiisa in la koriyo qof xil iska saarayo ma jiro annagana alxamdulillah waxaan ku soo korno wadankeena oo hooyay aaba midna maxaa la yiraahdaa maskaxdeena korisho uga maysan baahneeno dhagaxda gurigaaga dhexdiisa ay ka helayeen caraday arki kareen maxaa la yiraahdaa xayawaanaad yar yar oo sida baranbaradii jiir meel ordaay waxyaabahaas oo dhan jaanis maskaxdooda inay wax nool meelaha ordaayo uu arko jaanis ilaahayna soo siiyo waa aysa kuweena aysa heli karin ilmaha markuu sanad ka yari oo 2 sano uu ka yar yahay adduunka wuxuu u fahmaa kaliya waxa inuu arko wax kale ma fahmo maanta oo dhan hadaad dilaysid oo ku qaylinaysid ma aragto cunuga yarka markaad garaacdo disho daqiiqad kadib wixii aad ka celinayso hadana faraha kula jira because maskaxdi qaybta dhehayso qoftaani way ku dilaysaa ha u dhawaanin oo baqitaanka aha weli ma qaybtaasi ma bakurinba god haduu ku dhacayo ilmaha yarka uu iska soconaya ma oga inuu godkan ku dhacayo ciyaarta ugu jecel yihiin oo kale waxba la tusaa maraa laga saaraa ciyaartaas oo kale tan aad u jecel yihiin waxba inta la tuso maraa laga saaraa uu soo ordaya wixii meesha ka fiirinaya bal marka wuxuu ogaanayaa even haduusan u jeedin xitaa in ay wali wixii alaabti uu ku ciyaaray uu heli karo waqtigaas la galiyaa waqti baa la siiyaa maxaa la dhahaa ii sheeg waxyaabo badan oo cunno kala nuuc waa loo dhadhansiyaa dadka markay dhahayaan cunugayga waa 4 jir waa 3 jir cuntadii waa weyneedna ma iga qaadanayo because ma aadan barin intuu 2 sano ka yaraayo waxaad barta kaliya caano maxaa la yiraahdaa mishaariyar yogurt wax yar baa barta cuntada waa weyn oo kale waa loo dhadhansiyaa suugada afka loo mariyaa bariis hadaad cunayso 2 xaba afka loo galiyaa baastada wax yar la siiyaa wax alle iyo wixii cunaa dhadhanka haday maskaxdi taqaano cunugaas hadhow cuntada uu ka cunaya laakiin maskaxdiisa ma taqaano cuntadaas fruitko kale waa loo soo jarjaraa meesha yar ku ciyaaraya loo dhigdhigaa marba mid buu afka gelinaa uu dhigaa wuu bartay developmental ba maskaxdiisa ku socoto qaybtaas waana qaybta ugu muhiimsan cunugaaga haduu socodkiisa uu yaraado uu guri ku kooban yahay cuntada dhadhankeeda uu sabaranin qabrada badan uu san lahayn 3 jir marka uu jiro wuxuu u dhaqmayaa sidii cunug 2 jir ah sababtoo ah qaybtaasi wali ma buuxsamin soo marka cunugay still cuntada dhibaato ka haysato ma fariisanayo kuma maqlaayo waxa waa cunug 2 jir oo kaleeta ayaad ula dhaqmaysaa waan cunug 3 jir ama 4 jir 2 jir camalaad ula dhaqmaysaa soo marka ilmaheena waa behind dibay u dhacayaan 2 sano go'aydo cunuga 4 jir markuu yahay waa 2 jir markuu 6 jir yahay waa 4 jir cunug dib dhacsanaad wadataa marka waxa ku xigto qaybtii kale oo ahayd oo labaad pre-operational stage qaybtaani waa ilmaha wixii 2 sano ka sareeya ilaa iyo 6 sano 6 sano ilaa 2 sano ilmahani wuxuu yaqaanaa luuqada
ma arkin cunuga markay 2 sano ka soo go'day oo xaqi 2 jirka ku soo qaldamay 4 jir ilmo ah waxaad arkaysaa hal eray aanan sheegi karin sababta waxa keentay markaad cunuga mooska aad u dhibto banaanaha waa banaana ku dheh banaana uu qabanaya loo eraygii iyo wuxuu isku rabaa iyo wixii aad ka waday taasi ilmaha wax ku bartaan mana barno cunuga markuu 3 jir yahay waxaad u soo aruuridaa fruitka intiisoo kala nooc oo caagada ka samaysan waxaad u keentaa maxaa la dhahaa building block oo la dhidhiso afargeyska xidigta waxaas inaad tusido dhahdo waxan baa laga wadaa eraygu kula qabana ama Soomaali ku bar ama luqad kale ku bar laakiin waa cunuga waa inuu luqad keenaa oo 4 jirka markuu yahay waa inay Soomaalida hore maxay dhihi jireen 4 jir hooyadiis lama xanto kuwan hooyadood inta la xantaa suuqana la geyn karaa because ma fahansano marka cunugaas waa inuu luqada yaqaana dhawaaqi iyo eraygii wixii markaa tusto u dhahoy kaas waa geed hooy kaas waa gaari hooy kaas waa ka wiilkeygii aniga hadda ka hor waxaan u safarnay Soomaaliya Mareykanka oo aan ka baxnay Soomaaliya u socnay waxaan arkay wiilkii airportka markaan joogno diyaarad kasta uu arko hooyo waa airplane because waxyaabahaasaan u keeni jiray ayadoo runuhu arka marka waa 3 sano iyo 9 bilood meelahaas uu jira markaas airplane inta diyaaradda saaran oo dhan way ku qoslaayeen anigan inaa hay'adaha oo alla waa u jeedaa inaan dhahmaana ma iga aamusayo Mommy, see airplane taas ku marka qof ilmaha waa inuu markaas luqada yaqaana diyaaradu garanaa xilligaas waana 3 jir iyo wax marka diyaarad inay tahay caadi u fahansanaa waxyaabaha qaar soo marka luqada iyo sheyga iyo waxad ka wadid oo alaab ah hadad rabtid inaad tarmuus barto waa tarmuuski isagoo caagad ah ama isagoo sawir ah waxyaabaha sawirada loo keenaa waa kan waxyaabo badan oo sawiro ah ayaa jiro Mansuur gabadha la leeyahay kare barnaamijyo oo waxay jirto ay ku keentay maxaa la yiraahdaa ilmaha sida ay wax u barto wixii sawirkii iyo magacii oo kaleeto iyo sidii loo sameeyay lahaa iyo mashiino lagu sameeyo ayada ka daawan kartaan channelkeedan hoose idinkugu soo qori doonaa insha Allah marka videoga dhameeno soo markaan qaybta waa ilmaha luqadii yaqaaniin su'aalay ku weydiinayaan markay adiga 6 sano gaaraan waay qofkaan uu saan u yahay waay ninkaan muxuu saa ugu socdaa waay adiga u dheer tahay waay adiga u gaabanta waxyaabo kasto waxay ka keenayaan su'aal ilmahaas oo kale marka ina su'aashi ama haday ku fududahay inaad u jawaabto qaar baadaan hooy babyga halkuu ka dhashaa taas oo kale way adag tahay in loo fasiro laakiin luqiyada u soo marmar laakiin su'aal walba inaad uga jawaabto inaad dhahdo naga aamus ilmaha marka ma keenayo luqad sax ah iyo hadal sax ah marka only kaliyana ayaga waxay ilmahaasi fiiriyaan ayaga say dareema maanta isaga haduu ooynayo wuxuu maleeyaa inaad adigana la ooynays haduu faraxsan yahay inaad la faraxsantahay adduunka qofka ugu fiican cunugaas markaas uu aaminsan yahay waa hooyadii aabaha dhaleen qof kala fiican kama dhaadhicin jib kartid ilmaha 6 jirka 7 jirka marka u maato hooyaday waa the best aabahay waa ninka ugu sareeyo uu dhahan wiilkayga mari waxa la yiraahdaa lacag iskuulka laga keeno markaas wuxuu dhahay hooyaday lacag badan ay haysataa uu dhahay walaashay wuxuu arkay boorsadii lacagta kirada ay haysay markaas wuxuu yiri lacaga boorsada ugu jirto yiri ayadaaba taajir ah wuu baxay lacagtaas intuu qaar ka soo qaaday iskuulka geeyay wuu dhahay waa tanaani lacagta la iga rabo marka wuxuu fahansay wuxuu u maleeyaaba anagu cid naga lacag badan ba inaysan jirin fikradiisa intaasi ku kooban tahay waa inta uu asaga aaminsan adduunka oo adduun asaga sameeysto waa hooyadiis qof ka fiican ma jirto aabiis qof ka fiican ma jiro maxaa la walaalihiis wax ka fiican ma jiro gurigeena guri fiican waaye markaad wado dhahdo guri kale aad tusto wuu dareema wuxuu ku leeyahay gurigaana ka fiicano anaga waxaas ma haysano inuu ku dhaho waa macquul laakiin fikradda iyo adduunka kaliya oo fahmayo fiicnaasho iyo wanaag iyo wuxuu fahansan yahay in dadka asaga inuu ugu fiican yahay dad kale inuu jiro hadda aqligaas wali uma kordhin waxaan isii haduu ka waayo uu xanaaqsan yahay soo marka qaabab ilmaha da'daas markay jiraan loola dhaqmo ayaa jirto oo in la bartana ay u baahan tahay qaybtaasi waa qaybtii pre-operational stage ee ilmaha 2 jirka
markii 2 jir laga soo baxo ilaa iyo 7 ama 6 ay gaarayaan teeda kale ilmahaasi adiga kuma talaan ma arkin markuu cunuga 3 jir yahay oo kaleeto salaada taa dukato kula dukanaya garbasaar hada madaxa ku daboolato asagoo wiil iyo gabar midna ma u fiirinaan because ma yaqaanin inuu wiil yahay inuu gabar yahay soo garbasaarka hooyada haday madaxa ku duubato asna uu ku duubanaya aday kuma talayaan waxad adiga sameeydo uu fiirina ma arkin cunugan aniga u koobiyena waxa sameeyna dab hadan shido hooyooyin qaar ka cabanaya ilmaha because waa qof kale ku daysadaan ma jiraan aday waxay ku arkaan qofkii adduunida ugu sareeyay soo adigoo kale cunugaas markaad nacdo ama aad garaacdo ama aad xumaydo cunugaas oo kale noloshiisa xataa kuma jeclaanayo uu ka aamusaa shib ilmahaas oo kale shimbirka ka tago wuuna iska aamusaa hadalkuguma darsanayo soo marka dadka qaar markaa cunugayga iska aamusan cunug iska aamusan ma jirto cunugu waxba ka sameeyay ama waxbaad ku sameeyay adigaanan ogeyn wuu aamusaya shutdown uu noqonaya marka kaas oo kale ma fiicno cunuga haduu ka aamuso ilmaha qofka adiga oo ku dayanayay marka tahay waa inaad feelingkooda dareenkooda farxadooda inaad ilaalisid inaad isku dayo sembri anaga waa iska buuqsanahay busy anahay shaqadii noloshii ilmiya nagu culus waxaan sameyn just waxaan naqaanaa kaliya ilmaha inaan gacan u qaadno taasina waa laga fiican yahay ilmaha maxaa la yiraahdaa ilaa 7 jirka ayuu ku eg yahay maxaa la dhahaa pre-operational stage-ka qaybtii 3aadan u galeynaa waa ilmaha 7 iyo 11 muhiim haduu wax jiray waa ilmahan aad iyo aad inaad u ilaalisaan isku daya markay 7 sano jiraan iyo inta kale hadad ka soo qalqaladay xitaa laakiin cunuga 7 jirka ilaa 11 jirka very very careful inaad iskaga ilaaliso Allah kugu duwo sababtoo ah qaybtan waxa la yiraahdaa concrete pre-operational stage cunugan aqligooda ma korsana aqligooda waa wax yar just wuxuu yaqaanaa waxba weyn waxna way yariin xataa u fiiri tijaabadan samee koob dhuuban 2 koob oo isla ag biyo ku shub oo isla ag biyahaas inta qaadid hadhow koob dhuuban intaad ku shubtid oo biyo inay badanayaan aad u maleysid is agdhig weydii labadan biyo yaa badan dheh wuxuu ku dhahayaa midkaasa badan midka koobka dhuuban ku shubtay cunugan wuxuu yaqaanaa wixii weyn wax badanaan ku siiyo wax badanaan ku jecelahay wax badanaan saas tahay uun kaliya inaad dhahdo maahan hadda wiilkayga bari waxaan ku sameeyay maxaa la dhahaa gabadheydana koob yar ugu shubay koobkiisii meel uu aadan garan waay waxa soo qaaday koob kale oo dhuuban asna inta ayada siiyaan subaxdii dambe markii la soo kacay ayada koob dhag laho xoogaa weyn oo caagaho weyn ugu shubay wuu soo kacay subaxdii kii ku dhagay I knew marka aniga qaybtan psychology-gan waa ogaay laakiin inuu tahay inta ku seexday uu subaxdii dambe koobka weynaa uu ku dhagaayo ilmaan aniga labadooda biyo isla eg orange isla egan siinay laakiin asaga wuxuu u fahmay ina ayada biyo badan siinayo asaga aan biyo yar siinayo orange ina asaga ku yareynayo ayuu u haystay soo marka ana koobkan maanta ku cabaayo dhaw ku dhagay waan dareema marka waxa iga maqneed in aan 2 koob isla eg wax ku siiyo waan waayay koobkaas marka ku siiyo laakiin fikradii inuu maskaxda inta ku qabsado subaxdii wuxuu ku soo hormaray inuu koobka weyn qaato biyo isla egaan siinooya soo marka ayaga dhan waxay fahansan yihiin wax weyn wax badan anaga waxaan u maleynaa cunug weyn oo 7 jira cunug weyn oo 8 jira no maskaxdiisa waa eber runta hadii lagu sheego maskaxay kuma jirto waxa uu baran karaa waxa uu akhrisan karaa waxa uu qori karaa ilmaha soo kale TV-ga ka yaray programyada sportiga ka soo qor wax badan akhri buugaagta sheekada gaaban u keen akhri logic kaliya maskaxdiisa cunugaasi wuxuu yaqaanaa wixii macquulna waxa physical maanta haduu soo ordo lacag isii that's it maanta haduu wax wanaagsan sameeyo shumiha thank you bas ma yaqaano wax kala jiro ama dhib kala jiro ama xaalad kala jirto ma fahansan only wanaagu fahansan yahay cunuga markuu age-kaasi 11 ilaa 7 jir wanaag ma ahane wax xumaan ma fahansan cunugaasi haduu ka dareemo wax xumaan wuxuu bilaabaa inuu wax walba adiga ka qariyo wax walba wuxuu bilaabaa inuu ka qariyo because wuxuu og yahay inaad
maryaha tuuranaysa haduu wax yar kuu sheego halaba ayay no cunugaas marka isku day inuu soo waxba ka qarino haduu mar bilaabo inuu wax ka qariyo adigana waa ahaate waana meesha ugu fiican ee ilmaha tababar fiican lagu siiyo iyo galkacayl badan iyo wanaag cunuga xilligaas haduu ka soo wareero xilliyada dambe ugu dambeys markuu dhasho ilaa 2 jirka waa muhiim markaan saddexaad ee maxalla concrete pre-operational stage na waa muhiim labadaas inaysan ka dhumin isku day cunuga haday labadaas ka dhuntan cunugaaga si maxaa la dhahaa 12 jir ilaa 18 jirka cunuga ah cunug aadan qaba karinoodan shaqo iyo shuqul aadan isku lahayn oo noqona ama cunug aad gowda ku haydido ka aamusay kuumana furaayo kuumana xiraayo adi kala meel u raac waa ismaana iskuulku ka imaana meel ka fariisana haa iyo may waxaan ahayn adiga iyo asaga idama dariska inuu wax u sheegto sirka iyo secretka wax walba gabadha iyo wiilka inay u sheegtaan waa macquul cunugaada wax aad ka ogeyn laakiin dariska wax ka ogeyn laakiin adigana ku soo sheegaynin baa jiraan soo marka cunugaas iska ilaali 12 iyo 18 jir waa formal pre-operational stage markaan waxa kaliya ay fahansan yihiin hormar iyo qasaaro hebel anaa ka fiican iyo heblaay anaa ka fiican iyo ani waa fiican ama ayada ayga fiican cidaas way naga fiican marka ay dareemaan in dad ka fiican jiraan waa markaas inuu ka lacag badan yahay oo ka labis badan yahay kabaha uu watay boorsada uu wato uusan asaga awoodi karin cunuga 12 jir markuu gaaro waay uu ku dhahayo hebel wuxuu wata ani ma qaadan kari hebel soo hooyis jecesha ani hooyadee ima jeclo hebel waxa loo sameey aniga leeyma sameeyo markaas waa aqligiisa waa logic kaliya wuxuu fahmayaa in la kala fiican yahay fikradaas uu keensanaya just marka ay fahmayaan waa inay dumar tahay inay rag yihiin inay iskala saaraan oo naag inay tahay gabar tahay maxaa la yiraahdaa lab iyo dhidig inaan kala nahay markay fahmaan waay wixii ka horeeyo naaga tahay heblo waa leedahay heblo ilmaha ciyaal suuqnimada qajaanimo waay markaas la baro laakiin 12 jirka ilaa 18 jirka waa ilmo fahansan inay gabar tahay kana wiil yahay asaga raganimo leeyahay iyadana dumarnimo leedahay wax ay ku kala duwan yihiin uu fahansan yahay markaas ilmahaas oo kaleeto markaas oo kale waa ilmaha inta fikrad keenan hadana ka dhaadhiciyaan fikradooda inay sax tahay waaba haday kula sheer gareeyaan waa final stage-kii ugu dambeeyay soo marka hooyooyinka waxaan kala talinayaa in markay dhashaan ilaa 2 sano inay aad u ilaaliyaan iyo markay 7 sano iyo 11 sano ay jiraan labadaas mar waa labada mar ay ugu muhiimsan in aad caruurta ka haqabtirto xagga hooyanimada ah waa labada mar ay ku aaminsan yihiin inta kale inta u dhaxayso waxa waa ilmaha maaragta qaarkood markaad ka sii jeesato wax kasta oo qalada ay sameynayaan marka soo jeesatana caadi ay iska dhigayaan soo marka pre-operational stage kan waa maxaa la yiraahdaa concrete stage-ka iyo maxaa la yiraahdaa cognitive developmental labadaas qaybood oo ilmaha ah waa inaad aad iyo aad u ilaalisaa sensory motor stage iyo maxaa la yiraahdaa concrete operational stage classka psychology-ga dadka bartana aad ay u fahansan yihiin aad ayuuna muhiim ugu tahay meel kastoo joogtana waa inaad barato qofka bini'aadanka maskaxdiisa iyo siday u koreyso iyo heerkay gaarsiisan tahay barnaamijkan noogu xigana wuxuu noqon doonaa midkan aan kaga hadlayno waalidka adiga waalid sidee ah ayaa tahay nuucee tahay ayaan ka hadlaynaa